السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. waa Muxtar Production ala ugu baratay wararkii ugu dambeeyay Soomaalida. Maanta waxaan idin haynaa video aad ka yaabi doontaan. Videokaasi oo ku saabsan inaan la isku haysto waxaa loogu haystaa anaga dhalay. Reerka labada cid baa is haysata midda kale inantani waa inan 65 jir caan ah fanaanada yiraahdo Nimco Yaasin Caraale. Nimco Yaasin waxay leedahay anigu waxaan ka soo jeedaa reerka kale kama soo jeedo reerkan kale. kuwii kale waxay leeyihiin reerka kama soo jeedeen reerkayga ka soo jeedaa. kuwii kale waxay leeyihiin reerkayga kama soo jeedeen reerkayga bay ka soo jeedaa. marka arintu waa lagu reer waa la isku haystaa iyadoo waxay leedahay xaqan baan ahay. kuwii kale waxay leeyihiin xaqan baa tahay. kullay xaqiiqadu way cadaan doontaa laakiin waxaa igu qosolka badnaa daawada in yar la daawada videogan odagan reerka ka socda wuxuu leeyahay ila dhageysta ila daawada. Sheekh Maxamed bin Xaniifa Sheekh Maxamed bin Xaniif ana annaased loo yaqaano Ibraah beesha Ibraah shirkaan qabanayay waxa weey shirka jaraa'idaan qabanayay waxaan ka hadlayaa arrintii ahayd Nimco Yaasin Caraale ku saabsanayd arrintaasoo toddobaadkan dambaba aad iyo aad u soo noqonaysay ahaydna saxaafaddu ay ka hadlisay meel walba halkaasi lagaga hadlayay lagaga dhawaaqayay waxaa jirtay gabadha Yaasin Nimco Yaasin Caraale inay tahay gabadh Yibira waxa weeye waa Yibir weeye waa ina Yaasin Caraale walaasheed adeega waa tan yaag fadhiday iminka dhanaca iga xigta bidixda inantaasi 65 sannadood ayay jirtaa 1954 bay dhalatay waxaanu leenahay beesha caalamku Amnesty International maxaan ku dhahdaa xuquuqul insaanka qaranka in la soo farageliyo arrintaasi nimankaa sheegtay ee reer xamuud ama Sacad Muuse ee yidhi gabadhaas annagaa dhalay waxba kama jiraan 65 sannadood xaggay ku maqnaayeen xaggaysay joogeen maxay u sheegan waayeen subxaanaka yaa cadiim waa wax la yaab adaga wuxuu leeyahay international community Africa Union United Nations all wayna ka soo farageliyaan arintani maxaa la soo faragelinayaa ma siyaasadda ma labo dad islaynaya ma dad lagu duulay ba garanaya waxa in yar la isku haysto waxa United Nations iyo international community loogu yeero magaas arana wax ka qaldan reerkan kullay inad waa in weyn xaqiiqda ila garan doonta wixii xaqiiqana ayada soo laakiin xaqiiqda markii la eego cadaynta meesha taal inantan ayay u egtahay reerkan aad bay u egtahay inanta walaasheeda inanta kale aad isku egyihiin hore Soomaali wuxuu jira waa sinji waa maguuraan aduu suulka ka gala ma garat marka sinji waa waxa muhiim ah waa waxa weyn inta waxaan oran lahaa shirkadana wixii ku soo gabagabeyn lahayd waxay tahay waa in la sameeyaa DNA in la sameeyo waa in DNA investigation in la sameeyo DNA investigation taas wuxuu sameynayaa in xaqiiqda labada reer la kala ogaado labada cid ka shay ma reerkan baa dhalay ma reerkan ka baa dhalay marka xaqiiqda taas sidaa ay xal noqon kartaa ayaan isleeyahay channelka fadlan subscribe si like share comment ina ka bixi aad baad u mahadsantihiin wixii akhbaara waan idin soo darin doonaa wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh one love Somali people.